asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada kanaalka Noodaan oo aad kaga barateen casharka kubaxa afka Soomaaliga iyo weliba barnaamijyo la xiriira dhiirigelinta oo aan halkan idinkugu soo gudbino. sanad wacan mar labaad iyo mar saddexaad waxaa bilowday sanad cusub, sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin wada bilowdeen barnaamijyo cusub, hadafyo cusub, goolal cusub iyo weliba inaad runtii sii laba jibaari doontiin dadaalada aad wadiin. maanta waxaan qaadan doonaa sidaad kusoo aragteen ciwaankaba cashir aan kaga hadlayno Gmail. waxa la yiraahdo Gmailka dadku waa isticmaal dhammaantood, youtuberada iyo dadka caadiga ganacsiga shakhsi ahaan inaad waxyaabo kale ku gudbiso. waxyaabo badan ayaa Gmail loo isticmaalaa, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye sida loo diro email. sida aan ognahay Gmail waxaa loo isticmaalaa oo kaliya in email la diro, soo sax ma? sidaa darteed laakiin waxaan ka hadlaynaa emailka halkii mar waxaa u diri kartaa oo kaliya hal qof, laba qofood iyo saddex qofood. marka maanta waxaan ka hadlaynaa sideen ugu diri karaa 100 qofood ama in ka badan hal mar. marka barnaamijkan ayaa isticmaala su'aasha soo weydiinaysa. barnaamijkan waxaa u isticmaala oo inta badan u badan ganacsiyada, jaamacadaha, iskuulada, ajeensiyada sameeya xayeysiinada iyo qof walba u baahan inuu waqti badan uusan ku bixin oo uusan macaamiishiisa hal email ugu dirin ee hal mar u wada diro. waa waqti runtii intaad hal email u diri lahayd hal mar waxaad diraysaa 100 qofood, 400 qofood, 500 qofood. waana wax runtii tallaabo weyn la horumar ah. sidaa darteed waxaan idinla wadaagayaa qaab free ah oo aad u samayn karto barnaamijyadaas. inta badan waa lacag oo waxaa jira software waaweyn oo barnaamijyada ka shaqeeya. sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan raadiyo ama baaris ku sameeyo baraha bulshada, adeegyada browserada, adeegyada YouTube-ka, meel walba aan ka raadiyay. marka waan soo helay barnaamij free ah oo aad halkii maalin u diri karto 50 qofood, 100 qofood, laakiin waxay ka badan ay yihiin lacag. tusaalaan 400 qofood sanadkii waa $25. soo marka qofka u baahan barnaamijkan inuu isticmaalo maxaa looga baahan yahay waa su'aal. waxaa laga baahan yahay oo kaliya inaad lahaato account Gmail ah iyo sidoo kale inaad ku diyaarsan yihiin email-adii aad u diri lahayd, iyo sidoo kale inaad barnaamijkaada ku shubto ama software-ka loo baahan yahay inaad ku xirto waxa la yiraahdo Google Spreadsheet-ka. marka waa emailkii, Google Spreadsheet-kii, software-kii iyo email-adii ku diyaarsanay. afartaas waxyaabood ee laga baahan yahay. sidaa darteed hadda waxaan joognaa ama waxaan hortiina ka muuqda waa Gmail. sidaa darteed hadda waxaan dirayaan leeyahay email baan diyaarinaya marka horeeto. waxaan leeyahay marka emailkiisa u jeedin qofka loo diri lahay ma aan ku qorin sababtoo ah ma doonayo inaan hal qof u diro, waxaan doonayaa inaan dad group u diro. sidaa darteed waxaan ciwaanka ka dhigay qiimo dhimis ballaaran 70% off. halkaa marka waxaan rabaa ku qoraya tusaale waxaan leeyahay graphic design course as 70% off. markaan ku qoro markaan halkaan ku diyaariyo waxay qofkii aan u sheegi lahay ama waxaan qiimo dhimista ku sameeyay ayaan waxaan sameynayaa cancel baan sameeyaa. halkaas ma dirayo. markaan cancel sameeyo waxaan tegayaa meel cusub, baan tegayaa waxaan ku qoray hal yiraahdo Google Spreadsheet. enter baan leeyahay. marka waxaan noo soo saarayaa waxa la yiraahdo spreadsheet. hoos u baxaysa halkaan baa kugu soo bandhigayaa Google Spreadsheet-ka. Google Spreadsheet-ka halkan waa online, marka ma aha wax aad adiga soo degsanaysid, maahan online ku shaqeeyaa. sidoo kale telefoonada waa ku shaqeeyaa iyo kombiyuutarada waa lagu shubi karaa, laakiin inta badan wuxuu ka tirsan yahay Google Suite-ka oo ah barnaamijka loogu talagalay ganacsiga iyo qof walba personal u isticmaali karo. marka Google Sheet waxa aadayna marka Spreadsheet-ka aadayna marka halkaan keeno waxaan leenahay marka waxaan sameeyaa blank balaas ataabayna meesha warqad banaan geeyaan leenahay. marka warqada banaana keeno waxaan sameeynaa
warkan waa okay, waa hadda waa dhammaystiray. waxaan kusoo diraynaa marka halkaan softwarekii, waxaan tegaynaa add-ons, waxaan leenahay marka get add-ons. markuu halkaan keeno, halkaan waxaad ku qoraysaa yet another mail merge, yet asaa kuusoo qorayaba, marka waa kaas ah. markuu kuwan kuusoo bandhigo, waa kan koowaad waayo calaamada guudka background guud oo saaran oo ku install garanaysa. marka wax kale sameeymaysid, continue aad leedahay. kadib halkaan baan kuusoo bandhigayaa emailkaadii nodan20@gmail.com waa isticmaalaynaa. marka wuxuu ku leeyahay waxba waa bal maarta okay allow aad leedahay. hadaan allow dhihin kuu shaqayn maayo, sidaa darteed waa inaad u ogolaataa wax walba uu doonayo. waan sugaynaa ilaa uu ka dhaho waa kuu install gareeya oo aad diyaarsan barnaamijka oo isticmaali kartaa. okay, marka hadda waa diyaarsan barnaamijkii oo waa ku shubnay. marka waxaad sameydaa, markaad barnaamijka ku install gareydo, halkan waxaad soo dhigtaa emailadii. marka hadda email halkan igu diyaarsan yihiin, waxaan sameynaya oo kale yahay waa copy aan soo sameynayaa. halkaan aan ku bista garanaya, halkaan ka bilaabaya v aan leeyahay. so marka laba column aan ka dhigayaa maadaama aan doonaya isku qasmin. hadda marka waa ujeedin markaa soo diyaarsato emailadii oo halkan aad kusoo diyaarsato. markaad emailadii halkan kusoo diyaarsato, waxaad sameynaysaa oo kaliya markaad emailada soo diyaarsato, lineka ugu koreeya ma columnadaas ugu koreeya, labadaas row iyo labada column ugu horeyda, waxaad ku qortaa midna name midna email address ku qor, kala caday labadaas, because hadhow wuxuu ku leeyahay keemaan email ka soo qaata column k, ma columnkaas name ku qoran ma emailadu ku jiraan, ma sakan ay ku qoran tahay email address. marka hadhow waa ku weydiinaya, sidaa darteed waa inaad kala cadayda. marka saan usoo diyaarsato waxaad sameydaa, waxaa ku laabataa meesha ku qoran tahay add on. marka ku laabato waxaad doorataa barnaamijka meeshan waxaa ku jiri kara barnaamijyo badan ku jiri kara oo aad ku shubato. so markaad midkaan doonin waxaa waaye midkaas yet another mail merge, waxaad sameynaysa waxaa la yihahdo start mail merge ku siinaya optionkaas. hadda waa shaqeynaya, marka uu shaqeeyo kadib saa bilaabi doona. waxaa yaraan sugaynaa. marka halkan ku yahay marka laba option jirta. marka soo ujeedin waa personal plan oo ah 400 emails per day inaad diri karto, iyo halkan oo ah inaad diri karto 50 email per day. marka hadda hal email aan dir aniga, marka waxaa ii furan 49 email ayaan diri karaa maanta 4 saac gudahooda. so marka waxaan leeyahay marka continue. markaan continue dhaho halkan marka hadaan ku laabano emailkii aan abuurnay, markaan ku laaban emailkii markaan qornay waa cancel gareynay. so markaan cancel gareynay, wuxuu emailku aadayaa halkan ay ku qoran draft. waxa waaye emailkan lama dirin iyadoo la qabyaha ayaa laga timay, macnaha qabyo waa draft, waa qabyo lama dirin ma dhamaystira macnaheedu waa. so marka spreadsheetka ma barnaamijka softwareka wuxuu ka soo qaadanayaa draft-ka soo qaadanaya asiga. haddii gmail-kaadu oo ku jiro email draft ah, asiga uu qaadanaya. hadday ku jiraan meeshan ugu yaraan 6 ama 7 email oo draft ah, wuxuu ku leeyahay dooro keebaan diraa ku leeyahay, asaa option ku siinaya. so marka halkan markaad waxaa kaa siinaya email template ku qoran tahay. haddaad ku dhufto sidaas calaamad adiga saaran defaultiga ah. marka daakila ku siido halkan wuxuu kugu soo bandhigayaa email draftiga oo ku diyaarsan oo aan weli la dirin. so marka hadda halka ujeedin qiimo dhimis ballaaran ayaa ku qoran, kaasaan ku dhufaynaa. halkan marka waxaan ku qoraynaa qofkii dirayay, tusaale ahaan shirkad dirayay shirkadda magaceeda, haddii ay iskuul diray iskuul magaciisa, hadda adiga shakhsi u dirayso shakhsi ku qoraysa. marka waxaan ku qoraynaa noodaan. marka saan sameydo automatically waxaad leedahay send these emails. so marka hadda send aan iraado 5 email oo halkan ku jirta, marka hadda 5 hadda send aan iraado waa confirm waa diray.
soo markaa waxaan sameynaya iyo dadka inaan u diro email ma rabo. marka waxaan sameynayaa si aan u tijaabiyay waxaan sameeyay sax inay qalad yihiin. waxaan leeyahay marka receive a test email anaa isku diraya shakhsi ahaan si aan u ogaado inaan waxaa sameynayaa ay sax yihiin. marka hore waa inaad iska baraaweydaa adiga isku dir marka hore. sidoo kale waxaa kugu halkan option kale kugu sameynaya waxay tahay delay delivery. macnaheedu waxaa waaye inaad ku sameyn karto waxa la yiraahdaa xilli aad cayiman aad u diri karto oo hadda aad diri karin. tusaalahaan laga yaabo inaad emailka aad rabto inaad dirto 2 maalin kadib aad laga yaabo inaad waqti heli weyso mashquul noqoto. soo darteed hadda ayaad waqti u yeeli kartaa marka taariikhda aad diraydo iyo saacadda aad diraydo soo jeedin wax walba dirsan yihiin. marka anaga hadda ma dirayo cancel aan leeyahay halkaan kusoo laabanayaa. laakiin waxaan fiirinayaa bal emailka testiga ahay ee aan isku diray baan fiirinayaa. soo marka halkaan inboxkayga imaanayaa refresh aan leeyahay maadaama aan hadda email soo diray waa kaasaa kan ugu koreeya me anaa isku soo diray waana qiimo dhimis ballaaran 70% off. soo ujeedin halkaan kusoo qoran graphic design course 7% off. soo marka waxaa ujeedin inuu shaqeynayo. marka hadda cancel baan iska leenahay. sidaa darteed sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.